muuqaalkeena maanta waxaynu ku qaadan doonaa cashir muhiimad weyn leh waana data encryption waxay tahay iyo sida loo encrypt gareeyo faylasha Windowska ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta saaxiibaya. Data encryption waa mid ka mid ah toolska ugu awoodda badan ee cybersecurity-ga waana processka ama habka looga dhigo xogta la akhriyi karo mid kala daadsan oo aan la akhriyi karin. xogtu marka la akhriyi karo ee caadiga tahay waxaa lagu magacaabaa plain text, marka laga dhigo mid daahsoon oo aan loo akhriyi karin sida caadigaana waxaa lagu magacaabaa ciphertext. haddaba processkan waxaa lagu talagalay in lagu ilaaliyo xogta oo laga ilaaliyo inaan isticmaalin cid aan lahayn. waxaa jirta laba nooc oo loo sameeyo encryption-ka, waxaana lagu kala magacaabaa symmetric encryption iyo asymmetric encryption. labadan hab waxay kala duwan yihiin aynu isla eegno. Symmetric encryption waxa uu isticmaalayaa in hal fure uu isticmaalo in xogta laga dhigo ciphertext, sidoo kale in furahaas uu isticmaalo in xogtii dib loogu soo celiyo plain text ama qoraal caadi ah. Si kooban, symmetric waxaad u fahamtaa quful hal fure loogu furo halkaa furena lagu xidhayo, halka asymmetric waxa uu kaga duwan yahay inuu isticmaalayo laba fure, mid xogtii lagaga dhigayo ciphertext iyo mid dib loogu celinayo plain text ama habkii caadiga ahaa ee la fahmi karayay. Si kooban, asymmetric waxa uu isticmaalayaa in fure khaas ahna lagu xidho fure khaas ahna lagu furo. marka asymmetric waxa uu isticmaalayaa laba fure halka symmetric uu isticmaalayo hal fure. inta wasla fahnimo filaya meelaha aynu isticmaalno data encryption waxaa ka mid ah secure communication ama inaynu wada xiriirino si ammaan ah. tusaale ahaan, markaad WhatsApp isticmaalayso ama Signal waxaad aragtaa qoraalkan end-to-end encryption oo macnaheedu yahay fariimaha idin dhex maraya adigii qofkaad la hadlaysa ammaankoodu way sugan yihiin oo cidi dhex kama qabsan karto. haddii dhex ka qabsatana ma fahmi karto oo markaa fariinta adigu dirto ee loo wado qofkii kale ayaa xogtii la encrypt garaynayaa oo laga dhigayaa ciphertext. qofka u diraysay markay soo gaadhana waxaa loo bedelayaa plain text. cajiib soo maahan. waxaasoo dhan waxay ku dhacayaan sikino oo maba dareemi kartid waxa ku dhacaya fariintii aad hadda dirtay qofkii kalena uu hadda arkay. data encryption waxa uu leeyahay muhiimado aad u badan oo ammaanka xogta ayuu kor u qaadayaa. haddaba waxaa jira siyaabo badan oo xogahaaga u encrypt garan karto, waxaana ka mid ah inaad isticmaasho softwareska lagu talagalay encryption-ka sida Descriptor oo ku ogolaanaya inaad gebi ahaanba encrypt garan karto hard drive-ka ama qayb ka mid ah, waxaana leeyahay security level sareeya. haddii aad rabto inaad isticmaasho softwareska encryption-ka waa kuwa aad u fudud badanka, waxaanaad kaliya u baahan inaad raacdo instructions kaga muuqan doona shaashadaha. ugu dambeyn, data encryption waa mid muhiimad aad u weyn u leh cybersecurity-ga iyo guud ahaan qof kastoo isticmaalaya aaladaha digitalka ah, maadaama lagu hubinayo in cidda xogta rabtaa ay tahay ciddii loogu talagalay ee saxda ahayd. waad xasuusataa samaahan cashirkeenii 8aad waxaanu ku soo barnay confidentiality. si kooban, encryption waa qayb ka mid ah confidentiality-ga. muuqaalkan maanta intaas ayuu ku eegyahay. waxaan rajeynayaa isla fahanay waxay yihiin data encryption iyo sida loo sameeyo. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. fadlan ha ilaawin inaad subscribe dhawo channelka, muuqaalkana like saarto. mahadsanid.